الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan jecelahay sidii caadada inoo ahayd inaan muxaadarada dalkeenu marayso iyo adduunku baalku marayo inaan dadkeen la wadaagna. marka u horeysa ilaahay ma hadlay subxaanahu wa ta'aala, ilaahay kaliya ma hadlay. waxaan marka hore aan tacsiyeynaya dadkii lagu dilay tuuladii la weyn jiray Boqdarkeen. ilaahay samir iimaan dadka ha ka siiyo, haloona gurmado dadkii guryaha laga gubay sidii gacan loo siin lahaa ay Soomaaliland. waxaan hadii haddana waxaan baliyanayaa ciidamada Soomaaliland qaranka guulay ka gaareen iyo dhibaaxooyin ku dhufteen ruwanta. arrinta ka dhacday deegaankaas waxay muujinaysaa siyaasadda iyo ujeedada ay leeyihiin cadowgeena ugu soo duulay ee isbahaystay ee G21 ay ka gotay. waxaa ka caddaatay inaan arrintu siyaasad ahayn ay tahay dabargoyntii Maxamed Siyaad Barre askartiisu ku qoran jirtay kaararka dabargoynta Isaaq ee Sheekh Isaaq tiibarta muuqata. nimanka garaadada ah ee fikradan abuuray ee nabadda ku hadlayana waxay idin sheegayaan shacbiga reer Soomaaliland in nimankaas gacantooda waxba ku jirin. masiibada ay abuureen ayaa maanta khatar inoo haysa. waxaan ka xumahay in dhaqankii Soomaaliya u dagaalami jirtay iyo ehelnimadii iyo raximkii iyo wada noolaashihii Soomaaliya ka dhaxaysay geeska Afrika degan inay baabiyeen kooxda Soomaaliland iyo reer Sheekh Isaaq u bahaystay inay baabiyaan. oo maanta Soomaali meel ay joogtaba ay dhal tahay oo dadka wada hubeysan yihiin. inagoo maanta og adduunka halku marayo, inagoo waxa ka socda Falastiin maanta inay nimankaas G21 iyo Jin iyo Jaan iyo garaadada abuuray inay Soomaali xarkii isku hayay iyo dhaqankii iyo wada jirkii iyo wada noolaashadii ay burburiyeen ayaa horta meesha ka muuqata. waxaan leenahay shacbiga reer Soomaaliland iyo ciidamadooda hala taageero difaaca qaranka iyo sharafteena iyo jiritaankeena iyo xuduudeena. yaan loo dhaqmin si ay u dhaqmeen, yaan guryaha la gurmin, yaan maatee la dilin, yaan maxaabiis la abuse gareyn. dagaalkaa ay bilaabeen waxay u kala tegi doonaan dadka isdhalay dhulbahante iyo reer Soomaaliland. way iska tegi doonaan. ka fiiqa soo hanjabiya, ka kismaayo ka soo hanjabiya, ka geeda ka soo hanjabiya, way iska tegi. inteena wada dhalatay in baa doonaya in dab la isku dhiibo. fiqi أنا واحد مليون شاب بقول لكم قاتل وثلاث بقول لكم قاتل كليها. فقيه ما كويلي ما تشيرتنا العلوبة ولد الشام الساقنا العلوبة ولد الشام عليه حبوا يجين دونه بالبانته شعب بالبانته أنا ولا أنا حبوا يجين دونه السجي ما قال حبوا يتكرين حبوا يجين دونه kaas waa tani waa dameer iska ciyay halihiisu. laakiin waxa yaab leh waan aragnaa inuu Xasan Sheekh gacanta waxba ugu jirin oo diyaarad iska fuushan yahay. tolkii wanaagsanaa ee laga dhashay ee gacan saarka lahayn maxay ninkan ugu jawaabi waayeen. ninka leh dhulbaanta waxa loo galay sidii gaasa loo galay Falastiiniinta. waxa ku sheekaynaya iqbiir qaataha إن دي تركي نوانا وإحنا تركي أمي القبائل إن تركي نقال حاجات شاموي. حسن شيخان عليه حسن شيخان أو ريك قدر بعض لقول شري ولا يو فشل من يعني هو قال إليدي فرماتشي كل حديث إلا الشقينية. طيارة دفع على بقراءة تكتها وحد قطون بقال فرد الله داري
uma noqonaysa marka dad dalkoodii haysta oo nidaamkii dhistay ashirikooda ka qayb gelisay waa lagu qoslaya wax allaale wixii uu farmaajo dhigay systemku dhigay uma dusha ka fuushay dagaaladna way raacday markuu madaxweynaha doorto dadkiisuu dhigaa institutionska geliyaa dadkii ku dhisayna albaabkaad ka xidhatay waxaan ku leeyahay intaada fashilnimaa lagula doonayahay talada qaado dowladda adigu dhiso safaaradaha muuse wada dhigtay farmaajo dee soo bedel daakhiliyadood qaadatay daakhiliyad may jirtaa meel oo xukumaa jira khaarijyadii adduunku la macaamiliyeyna waxaad siisaa gruubkii farmaajoad siisa caqliga inaan ku dahay kan koofiyada qaatay dhulbahantaa la xasuuqina gaalka ayma tegi karo waa daakhiliyadii xagu daakhiliga ka yahay waxaan talin jirin baa layiri tale allahu akbar taasi waa caynkaa waxaan halkaa jecelahay in isku duubnaan baa dalkan lagu daafici karaa isku duubnaan ayaa lagu daafici karaa ummad kale jeedaa dalkeeda ma daafici kartay sharafteeda annagu waxaanu ka ilaalinaynay maadaama ay dhibaatadaas dhacday markii la soo daayay ciidamada hubaysan ee isku sheegaya garaadada ee hubaysan ee calanka sita markii dagaalkeenu aanu nidhi waa no war no peace nabadna ma wado muuse dagaalna ma wado waxaanu haddana ka xishoonnay in inagoo coda haysa inaanu madaxweynaha iyo dowladdiisa aanu faragelino wax ka sheegno waxaanu aan iska lahadlaadno laakiin hadda waxaa muuqata in dalkii aan dowladdi ka jirin ka aamusi kari mayno maanta dalku mariyo ka aamusi kari mayno wasaarad qura maanta shaqaysa dalkii ma jirto wasaarad qura oo maanta dalka ka shaqaysa ma jirto waa kuwaasoo shalayta markii layna soo daarto arbacadii layna soo gardaraystay iyagii gruubkii maleeshiyadii laascanood markiiba statement bay soo saareen ayna saarayaan dhibaatada waa iyagii hadda waxa geystay cid u jawaabtay oo statement ka soo dhacay dowladnimo horta meesha ma jirto waxaan leenahay maanta waxay dhacay dowladuhu markay waxaasoo khasaaraha keenaan looma adkaysto isbedel baa yimaada laakiin anu waxaan iska lahadlaadno yaanu maanta gexdayna ka sameyn waxaa jirta dhibaatada Soomaaliya waxay ka dhacday doorashadii madaxweynaha ee sharciyeysneed ee la laalay ay ka dhacday hal baa la keenay dadeen anagu waa ogolaanay halkii shacabka reer Soomaaliya waa ogolaanay hadda meelaha waxaan ka maqlaynaa doorasho aan laga hadlo doorasho waa laga hadlayaa difaac qaranka waa laga hadlayaa doorasho waxa weeye ina kala taagtay doorasho la'aan halkan ogolaanay waxa ogolaanay 2 sano bilaa sharciya ayaan ogolaanay oo nidaamada wax ka sanabada iyo wada jirka la siistay wallahi waxaan ka soo baxaya yaan doorasho laga hadlay war doorasho laga hadli waayo nabad ma jiriso doorasho halka la keenay ayaa ka weeye isu keenay ee nabadda iyo wada jirka aan dhaafsanay waxaan leenahay maanta waad arkaysaa waxa taagan ceelaf weyn inta bilowda la fadhiyo burco inta keena la fadhiyo alisaahib arintiisa boorame inta ilaa madaxweyne ka fadhiya waxaasi oo dhan waxay tusisaa inaanay effective government dowlad shaqaynaysa aanay jirin markaa ma gudaheenii baynu yabyabnaa oo ergooyin iyo bilaamicna ku maqnaa mise dalkeenu daafacnaa oo dadka la mideeya waxaa lagaa fadhiyaa madaxweyne Muuse Biixi in dadka mideysida laga rabo in la qabto shirki bulud gubada la qabtaa la rabo oo dadka wax tirsanaya la qanciya
oo inagoo isku taaban aan dalkeena xaqiiqsan ummad kala sabsani dal ma daafici karto waxa lagu nooliyay waa qaybsanaanta dhexdeena waliba reerka maanta Soomaaliland baabiinaya waa reer Sheekh Sax beer qaatayaal u batay kabara idur ayaway على شعب reer Soomaaliland dalkeenu maanta bila dawlad buu noqday xashiishadii baa soo gelisay raashinkii dhacay baa dadkeena waxay yaabsan dhakhaatiirtii Ethiopia war waxa oo kansar waa maxay dadku babadiishka intaayay dawadii dhacda la keenaya qaadkii baa la keenaya xashiishadii baa la keenaya meel qura oo shaqaynaysa ma jirto shacbigeena qaad iyo qabyaalad bayna kala jirto xashil bayna oo raacday shacbigeena maanta wasaasi u taagay dhaqaale xun haleenahay madaxweynaha si dhaqso isku keen waa si dhaqso u kulanaa dalkan wada jir iyo duubnaan baa lagu daafici karaa madaxweynaha si gooriyada madaxa qarsaday dal ma wada karayo keligii dalka qof uu ka adeeg daantay in qofka keligii wada isku yimaadaan hal isku yimaado si degdeg ah hal isku yimaado yalla waxaan halkan jecelahay inaan ka hadlo wada hadal Soomaaliya هذا الصومال لا راح دام يجتو لكن ماشى فديه عبد الكريم كان يكتم هرد ولا هذا الصومال وكل هذا المهم هذا دولد سفير كذي شوقي يؤنتو وصومال الدولمات كلها سفير كذي شوقي تركيا ولا صعنوت تحريها وسير كيس داخله وسان أركو حليه كليلو ولا هذا لا Soomaaliya jaahilkeena وسيد وحليه علينا ولا هذا دولتنا ما جري كرتو حلا لالو دولت أن لا قلنا وما أنت Soomaaliya oo jirta waa shan Soomaaliyeed baydhabo tagay wuxuu ka soo qaatay okay Kismaayo tagay okay banaadir la shiray waxa sad dawladda anagu haddaan soo baxay la hadlayno dalkay gacantan ku haysana laakiin tan Muuse bixi wada hadalka halaalo waqta ama dalkay wana haysana adduunka ayaan la macaamilnaa waxay wadi juuri bari mayna weer aan dawlad ka jirin daan u ciidahay waxa aad iyo aad jecelahay inaan asna aan siiyo xaal buuxa siiyo apologize ugaas Cabdirashiid ugaas roog ayaan tacsay wala ga gardaraa maalintii wala gardaraa aniga iyo adiga iyo ugaas Haarun watan way soconay statement ku hadlay marka soo gashay dooramana watan ku way soconay xabad balagaala dulin xaal baan ku siinaa hadaan reer Soomaaliya laakiin qof baa xumeeyay iyo aan masaaxay dalkaaga loo burburiyo waxa sheegay wasiirka hore Maxamed Abgaale nabad iyo tacliin iyo wanaag dee laguma yiraaho waa lagu haystaa qof la haystaa ma loo soo dalxiis yimaada ma loo soo tacliin doonta gobashiina iyo nabadiina aasiya dembigu shakhsi galena ummadda looma karbaasho administration baa ku qabsaday maamulka waxa maxaa musabixi oo waliba jifadaadu isagana ay gelisay inaan aan ku soo deeynin waxaan leenahay xaal baan ku siinay raali gali baan ku siinaa dalkaagii kaalay yarta quruxda badan lacagta loo soo diriya kaca ya karaga dhulkoodii ku magaalada ku lahayn dalka baascaano maanta waa faaro shanta Soomaaliyeed dhulbaanta magaalada ay ku lahaa ay gurtay maanta abaya aruti shaabadi nugaan maanta ma jirto wax ku qaata nabada ayaa wax lagu dhul dhisaa inaga waxaan kala tabanayna administration ka xumeeyana xabad waxaan ku bedelinaa codka loo diidaayay dadka iyo lama kiciyo nabada taaj baan haysan ilaahay noo siyaadiyay taajka ay naga tuurina Cabdirashiido ergadan ogolo dalina erga lama diideen erga ogolo saasa saaxiib ku leeyahay adigana waxaan reer Soomaaliyeed isku duubnaan wax lagu noqon karaa waxaan leenahay reer Soomaaliyeed wanaag la isfaro ayaa la xumo
maanta qof kastaba xil baa saaran, xilka saaran musabixi weyna wada saaran hadduu dalku burburo la odhanaya madaxweynaha waxaa wariyaa mudakar ahaa shacbigii mee iraadatu shacb ayaa shaqaynaysa hala digtoonaado hala tago dukaamada cuntada dhacday dawada dhacday waxoo dhan laga soo daadiyo xashiishada halayna hala doonaano hala kacaan leeyahay ilaahay ummaddeena umad khayr baa ka yeelo subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala ummaddeena khayr ilaahay caqliga siiyo ilaahay subxaanahu watacaala nabad haynoo siiyo nabad ilaahay hayna siiyo raxmaanka ilaahay hayna siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu